Inta badan madaxda qaaradda madow waxay u badan yihiin kuwo ku dhaqaaqa musuqmaasuq iyo isdabamarin aad u baahsan, laakiin wuu ka duwan yahay madaxweynaha aan ku soo qaadan doono mawduuceena maanta. Marka loo fiiriyo madaxda kale ee qaaradda madow, madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame waxa uu dhashay 23 Oktoobar 1957. Waa siyaasi reer Rwanda ah iyo hogaamiye ciidan oo hore. Waa madaxweynihii lixaad oo hadda ah madaxweynaha Rwanda, isagoo xilka qabtay 2000. Paul Kagame waxa hore u ahaa taliyaha jabhadda Rwanda Patriotic Front oo loo soo gaabin ogyahay RPF. Jabhadani ayaa fadhigeedu yahay Uganda. Kagame wuxuu ka dhashay qabiilka Tutsi oo dega koonfurta Rwanda. Waxaan maanta mawduuceena diiradda ku saaraynaa sidee buu dalkani uga baxay dagaaladii sokeeye ee soo maray, maxay ka baran karaan madaxweynaha dalka Rwanda madaxda qaaradda Afrika. Qabiilada Tutsi iyo Hutu ayaa ah qabiilo wada dega dalka Rwanda. Qabiiladani ayaa iska dilay ku dhawaad 5 milyan ilaa 8 milyan oo qof ah. Dadkii lagu dilay xasuuqan ayaa guud ahaan la rumaysan yahay inay u badan yihiin xubno ka tirsan qowmiyadda laga tiro badan yahay ee Tutsi. Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame markii uu noqday madaxweynaha dalka Rwanda sanadii 2000, waxa uu dhaxlay dal uu halakeeyay dagaallo sokeeye iyo dhaqaale la'aan baahsan. Paul Kagame ayaa dhex dhigay heshiisyo nabadeed labada qabiil Tutsi iyo Hutu. Kagame wuxuu tababar ciidan ku soo qaatay dalka Uganda, Tanzania iyo Mareykanka, waxaana loo arkaa in ku xeel dheer kaartooyinka ciidan iyo dhaqaale. Dal dhaqaalihiisa taga meesha ugu hooseysa, sidoo kale ka burburay nidaamka dawliga ah ee ka jira dalkaasi. Laakiin wax kasta waxay isbedeleen markuu madaxweyne ka noqday Paul Kagame dalka Rwanda. Dalka Rwanda hadda waxa uu gaaray heer ay ku soo hirtaan shirkadaha caalamka ka jira kuwa ugu dhaqaalaha badan. Dalkani ayaa tusaale muuqda u noqon kara dalalka ka jira qaaradda Afrika, kuwaas oo la tiicayaan dhaqaale la'aan aad u baahsan iyo ammaan darro.